madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayo waxa garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug socdaalka Dhuusamareeb ee madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu daaran yahay ka qaybgalka shirweynaha wada tashiga madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wajigiisii labaad ka furmayo halkan kaasi oo looga arinsanayo hanaanka doorashooyinka dalka waa socdaalkii afraad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug safaradaasi qaarkoodna waa kuwa aan wali ka go'in xusuusta shacabka magaaladan sida socdaalkii nabadda 2017 oo suurto geliyay midnimada iyo wadajirka Galmudugta maanta gogosha Soomaali fidinaysa Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb